waxaan nahay 3 gobol Gado Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose waxaan isku raacsanahay aniga oo ku hadlayo afka haweenka Jubbaland waxaan isku raacsanahay isbeddelka cusub waxaan aad u jecelahay maanta meesha aan xafladan kaga soo qayb galay inaan doorasho ka qayb galo isbeddel doorasho isbeddel inaan ka qayb galaan jeclaan lahaa waxaan boorinayaa oo aad u boorinayaa in isbeddelka cid kasta oo ka qayb qaadan karto sidii uu ku soo degdegi lahaa in la soo dedejiyo cid inay dib u dhigto isku dayayso reer Jubbaland waa soo daaleen daal uma dhimano musuq maasuq uma dhimano dil uma dhimano dhibaato uma dhimano markaan waxaan rabnaa doorasho cod aan u baahanahay waxaan rabnaa qofkii annaka na matali karo oo hoggaanka noo qaban kara inaan keensanaan u baahanahay waxa kale oo ku baaqayaa dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo dhiiga daadinaya sabalaanta dhiiga loo daadinayo dadka shacabka masaakiinta hooyada birmigeydada caruurta sabalaanta loo leynayo war Soomaaliya qof bay u baahan tahay qof inuu ka baxo uma baahno war Soomaaliya deganaashay u baahan tahay dagaal uma baahno war Soomaaliya maanta nabad bay u baahan tahay war cid kasto qaldan inteenan waxaan u malaynayaa inteenan isgacmaha isqabsanaya Soomaaliya oo dhan gacanta saas ka dhigi karto calankaana xukumo calankaana ku midaysana kanaan ku midaysana Soomaaliya dawlad goboleed ama ahano ama dawlad hebel oo ahano kanaan ku midaysana midnimada anfacayso hoggaanka sax ahaan anfacahay annaga on qabiil u fiirinayn oo qabyaalad u fiirinayn oo hebel u fiirinayn in aan dawladnimo mid ah iyo xornimo mid ah iyo horumar mid ah iyo wixii anfacayo mid ah Soomaaliya waxay ku mahmaadaan reer hooyo xun horay ma noqdo hadda ma reer hooyo xun horay ma noqdo waa reer aaba xun horay ma noqdo weeye oo tay sababtu gabdhaha madax looma ogola ragga weeye waxa madaxda noqdo waa reer aaba xun horay ma noqdo waaye in ragow annagu haddaan haweenka laf dhabarka bulshada aan nahay isbeddel baan u baahanahay oo u taaganahay Jubbada Dhexe oo gacanta ka maqan in gacanta lagu soo celiyo dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland bay u fadhidaa shacabkeeduna u dulman yahay Jubbada Hoose oo ayadana waxyaalo badan oo qadaada ay ka jiraan ayadana waxa loo baahan yahay in loo istaago ma aha shirkaan in loo qabtay in dad lagu dulmo isbeddel sax ah in aan ku gaarnay shirkaan loo qabto waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynayaa golaha isbeddel doonka maamul goboleedka Jubbaland aad baan ugu faraxsanahay cid soo abaabusheeyne ma sha Allah baan leeyahay horay u wada ha ka daalina aqbad kasto idin qabsatay ha ka daalina horay u wada sii wada guul baan leeyahay Soomaaliya ha noolaato ha israacdo cid dib u dhigaysan Allah naga reebo ilaahay soo hanuuniyo insha Allah ta'ala wa binaha karim waxay ahayd gudoomiyaha degmada ururka haweenka ee degmada Harrey oo munaasabad aarahdayda igu aadan ee gabarnimo ayun baan ka geysanayaa isbeddel doonka Jubbaland waa mid waqtigiisu uu soo dhow yahay ilaahay ninku ku simana uu gaari doono Jubbaland waa nabadgelyo waxarna kuma dhimanin weyla laguma gowricin wiil kuma dhimanin ilaa iyo sida aan ognahay waxyaalihii hore aan u soo dhaafnay in dib loo tawdana ma fiicno inagu maadaama nahay isbeddel doonayaal ama macaarad oo kale hadii la yiraahdo macaarad iyo maxaafid waa walaalo hal wax bayna wada doonayaan hal wax bayna wada leeyihiin fikirka baan ku kala bedelanahay insha Allah kuwi isku fahma fawdo ka dhaxdhalanin baa Ilaahay inaga dhigi doonaa idamka Ilaahay maxay haytay waxa la yiri ninkii qayrkii loo qooyo soo qoyso sidaan u ognahay doorashooyin ayaa maxay haytay hadda wadanka qaybihiisa kala duwan ka socdo sida maamulka Koonfur Galbeed iyo Puntland oo deeqaan gaarkeedu uu 20 gaaray
waxaan codsanayaa mudanaha maanta talada hayo ee Jubbaland ee isbeddelka dhow uu ku iman doono mudana waxaad ku timid maxay ahayd cod dad badan ay kugu taageersan yihiin waxaan ka codsanayaa inaysan noqonin Jubbaland meel fawdo diyaar u ah oo lagu dhibaateeyo isbeddelada iyo adduunkuna isbeddel uu ka dhacaa Mareykanka shalay waxa madaxweyne ka ahaa Barack Obama maantana waxaa ka maxay tahay nin kale ayaa ka maxay ahayd waqtigaagii haddii ilaahay idmo waad soo shaqaysay Jubbaland meeshii laga soo bilaabay iyo siday ahayd iyo heerka maanta ay joogto ilaahay baa mahad iska leh ninkii aan ka abaaldahaynin waa wax la isla ogaa oo taariikhda ku qoran bay ahayd wixii aad halaysayna kullay taariikhda ayay ku galaysaa wixii aad hagaajisayna taariikhda ayay ku galaysaa mudane waxaan ka codsanayaa codsigayga anoo ku hadlahayo magaca haweenka Jubbaland inaad si nabada oo xornimo leh oo maxay ahayd sharaf iyo wanaag iyo gobonnimo ku dheehan tahay aad u dhigi doonto gogosha isbeddel doonka Jubbaland haddii adiga ilaahay kugu soo celiyo mar labaad oo rabbi qadaro waa kugula shaqaynaynaa waa kugu taageeraynaa waa kugu garab istaagaynaa macaaradkana waxaan leenahay de idinkii baaban hadda dhammaynba macaaradkii baan dhammayn iyo isbeddel doonkii waad kala tanfaraaruqsantihiin ha loo wada dhammaada arrinkaa ha laga wada tashto goglaha intan ha laga sii badiyo wanaagga iyo maxay ahayd sida quruxda badan ee hawsheenu ay ku bilaaban doonto ay ku dhammaan doonto aan u wada ambaqaadno mudane mar labaad waxaan ka codsanayaa anoo ku hadlahayo magaca haweenka Jubbaland inaysan noqonin fawdooyinka dariskeena ka dhacay oo kale inaysan noqonin Jubbaland gogol nabadeed aad dhigto golo nabadeed aad ka dhigto halkani waxaa fadhiyo salaadiintii adiga koow ku soo doortay waxaa fadhiya raggii xildhibaanada federaalka ahaa oo markaas adiga kugu garab siinayay inaad kursiga ku guulaysato maantana xildhibaano sugayaal ama madaxweyne sugayaal inay si xorriyada oo nabadgelyo ay ku iman karaan Jubbaland waxa dhagahanaga in badan ku soo dhacdo inay Jubbaland go'doon tahay oo aad adigu go'doon ka dhigtay Jubbaland go'doon yaysan noqonin ha noqonin kaligii talis meel xun baa u dambayso mudane waxaan ka codsanayaa mar saddexaad iyo mar labaad iyo mar koobaadba inay noqoto Jubbaland goob xorriyad ah oo dimuqraadiyad ah oo ninkii kursi doonayo uu nabad u yimaado ninka taageerada ana uu nabad u yimaado ilaahayna ninkii uu siinayo dhammaanteen aan ku wada shaqeyno haddii aad adiga soo noqotona aan kugu taageersanahay aan kugu garab istaagaynaa waxaan leeyahay gabdhaha walaalaha oo conflictiga dib u soo celinaya iyo waxyaalaha boogaha sii dhalinayo hooyana inay boog ka hadasho waa wax ceeb ah hooyo inay boog ka hadasho waa wax ceeb ah Jubbaland waxar laguma dilin wiil laguma dilin way laguma dilin wixii ka jira waan wada ognahay saaka cid walba waarid haduu ka jiro walaal haduu ka jiro waa ay la wada hadashay waa nabadgelyo waxaan soo dhawaynaynaa maamulka talada sii hayay inuu soo dhaweeyo isbeddelka dhow ee ku soo socdo haddii ilaahay idmo 19 bisha 8 iyo isbeddel dhaba waa idin salaamaya assalaamu calaykum